sakaatulfitri waxay ka mid tahay waxyaabaha nebiga sallallahu alayhi wasallam markii laga soo gurinayay saxaabada beega unbaa looga soo gaariyaa haddii la miisaan hala saaro shayga wax lagu bixinayaa kala bedelan oo waxaa laga yaabaa inay gelay markii lagu beegahay iyo markii lagu beegahay bariis inay kala miisaan cuslaado talaan shaaficiya inaad madhabka abi xaniifa oo kale uu yiri inuu dhinaca kale inuu la aadi karo marka si looga baxo marka dadkuna shakiga uga baxaan inkastoo axwadku uu yahay sida madhabku xog badan in lacag lagu bixiyo xilliga ugu dambeeya waxa loo yaqaanaa waqti tahriim ama waqti xaraam aan loo ogolayn ilaa in daruuro iyo culays uu keeno maahan waa in laga saaray yaraa maalinta ciid oo dhan cudur la'aan oo qofku maalinka ciidda asoo ay ku waajibto soo waxba bixinayn maalmihii ka dambeeyay waa qado waa laga rabaa inuu soo gudo laakiin waa xaraam inuu geeyo cudur la'aan waxaan wanaagsan idin lahaantiin ba khiyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudano kuna soo dhawaada qaybtii 14aad inuu kaga hadlaynay bisha barakeysan ee Ramadaan iyo fadaaisha ka dambaysa waxaan qaybaha dambe kaga jirnaa qaybtii aan kaga hadlaynay zakatul fidriga iyo shuruudaha ku xeeran waxa barnaamijkeega la qayb qaadanaya Khaliif Cabdi Aadan su'aasha ugu horeysa ayaa waxay tahay waxa jira in la bixiyo zakatul fidriga xilliga ugu haboon in la bixiyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محمد وآدي آد بعضهم هالسنتهاي زكاة الفطر حلقة وهبون أو إن لبحيا وهبون تاي وحلي هذا وحلقة صلاة الصبح كذا بيسا إنت صلاة عيد اللي جارين حلقة ودحية هبونان تنوح كاني وحجرة أوقات احتمال أما الصورة قلا إن لبحي زكاة الفطر صح أوقات علماء واحد كوشة عن شان وقتي waqtiga koobaad waxa loo yaqaanaa waa waqtul jawaaz oo laga wada xil ay banaantahay in la bixiyo waana bisha Ramadaan markii ay hore ka bilato maxaa yeelay waxay leeyihiin zakatul fidriga sida aan shalay ku soo qeexnayba muxaadaradeena hore shuruudaheeda waxa kamid ay ku waajibaysay idraag wax leeyahay ama haleel qofku bisha Ramadaan inuu wax ka haleelo bishii ka dambeysay oo soonfur ama shawaal inuu wax ka haleelo marka labadii sabab mid kamid ah hadii la helo Ramadaan ba ay dhalataba hamiinka Ramadaan uu koow yahay oo dhashayba waa la bixin karaa wali waqtigaas waxa loo yaqaan waa waqti ay banaantahay in la bixiyo waqti waxa loo yaqaan jawaaz waxa kale oo jira waqti loo yaqaano waqtul wujub xilli ay waajibtay waa xilliga salaada maqrib markii la gaaro ama xilliga bisha Ramadaan ay dhamaato bishii shawaal ama bishii soonfur ay dhalatay xilligaasna waxa loo yaqaan hamiinkaas waa hamiinka ciida waa waqtiga ay waajibtay waqtul wujub baliira oo qofku hadii xilligaas shuruudaha asoo laga helay uu dhinta xataa waa laga bixinayaa zakatul fidriga maadaama xilliga ay waajibtay ay tahay صح waxa kale oo jira xilli la yiraahdo waqtul istihbaab ama xilliga sunnada ugu haboon waa xilligan hadda carrabaabnay oo ah salaada subaxiga markii inta la tukado qorraxda ay soo baxdo oo qadra ruuxin bay culimadu ay dhulka ka soo kor noqoto salaada ama waqtiga shuruuqa la yiraahdo ay soo dhaafto صح xilligaas ilaa salaada inta ka horeysa in la gelin ciida in la bixiyo waana xilliga ugu haboon waxa kale oo jira xilli la yiraahdo waqtul karaaha oo ajirkii waa ka yaraanay waajibkii waa ka baxay laakiin ajirka ka yaraanay waa in salaada ciid laga daba mariyo oo salaada ciid ilaa maalintaas ciid gudaheeda in lagu bixiyo maxaa yeelay waxay leeyahay xikmadii waa meesha ka baxayso waxa lagu talagalay zakatul fitriga tu'matu lil masaakiin baa masaakiinta marka waxa la rabaa salaada subax iyo salaada ciid inta u dhaxaysa inta la siiyo inay dadkooda la ciidaan oo dadkooda waqtiga farxada la qaataan hadii marka dib looga dhigo wax iimaanaysa marka iyagoo murugaysan oo meel wax ku sheegin inay salaada wax ka tukadaan taana waxa ka fahmaysa marka qaarkood caada dhaqan Soomaalida marka qaarkood ay leeyihiin aad isleedahay xogaa waa hab dhaqan dadka masaakiinta marka qaarkood ay sameeyaan in laga yaabo inaad maanta wax fiican hadaasiisa xataa ay si gurigooda ku laabaneen ay ka faa'iideysan yihiin maanta oo dhan ay salaada aadayeen masaajidda hortooda ay taagan yihiin طبعا waa duruuf qofka waxa keentay oo duruuftu isku la yaab male muslimiintan ayada lagu talagalay in is caawiyaan ilaahay baa waajib uga dhigay dadka aqnida laakiin qofku waxa la rabaa markii kifaaya uu helo wax ku filan marka uu helo inuu waxa la rabaa uu farxadda dadka qayb kala noqdo wixii uu guriga geysto salaadii cibaadada uu qayb kala noqdo xilliga ugu dambeeya waxa loo yaqaanaa waqti tahriim ama waqti xaraam aan loo ogolayn ilaa in daruuro iyo culays uu keeno maahan waa in laga saaray yaraa maalinta ciid oo dhan cudur la'aan oo qofku maalinka ciidda asoo ay ku waajibto soo waxba bixinayn maalmihii ka dambeeyay waa qado waa laga rabaa inuu soo gudo laakiin waa xaraam inuu geeyo cudur la'aan laakiin cudur hadduu yimaado tusaale kale waxay leeyihiin markay fuqaadu ka hadlayaan xoolihiisa uu ka maqan yahay meel fog buu ka jira xoolihiisa waajib kuma aha meesha uu joogo intuu wax ka deynto inuu yiraahdo markaas inuu iskaga bixiyo ee xilliga xoolihiisa uu tago aaday mid kale ma dhici karta in macnaha qofkaas qof wakiil oo kale uu ka bixiyo qofkaas uu samaysan karaa markaas hadduu awoodo maxaa yeelay kutubta fiqiga markii la qorayo badankooda qaybna waa kutubta hore qadiimkeed qaybna waa mucaasar oo xilligan dambe ama aaladan cusub iyo noloshan cusub ay la jaan qaadaysa
culimmadu xilligaas markay ka hadlayeen qofku markuu safar aado waxaa badnayd xiriirkiisa inuu dadka helo inay cuslayd marka qofkaas haddii xiriirka uu ku cuslaado xilligii uu u suura gasho iska bixinay inuu deyntaa waajibkuma laakiinse xiriirka hadduu u fudud yahay qofka maanta hadduu joogo Nairobi ama meel ka shaysa uu joogo xoolihiisina Muqdisho ay yaaliin waxa uu wada telefoonka intuu la soo baxay inuu yiraahdo hebel iga bixi markaas waa iska bixinay laakiinse lacala qadkiiba halaabi kala internetkii ama noloshiba waxay gaadhay xilli uu qofku la xiriiri karin bulshadii markaas waxay leeyihiin waa iska dibdhigi karaa laakiinse xilliga ugu horeeya uu soo laabto iska bixinay si fawran ama si degdeg ah uu iskaga bixinay inta ku qaadato marka awqaad uga haboon waa xilligaas oo salaada subaxiga marka qoraxdu soo baxday ilaa salaada ciid inta la gelin waa tahay zakatul fidriga maxaa ugu haboon in lagu bixiyo ma lacag ma bariis baasto maxaa ugu haboon in lagu bixiyo waqtiga la taagan maxamed aad baan u mahadsantahay waana su'aal muhiim ah xilligeediina aad ku soo aaday zakatul fidriga su'aashaadaas laba jawaab ay yeelan kartaa qadarka waxa la bixinayo horta maxay yihiin sida aad carab ku dhufatay iyo waxa sadaan isla qeexno intee laga bixinayo ma wax badan ba mise wax yar baa laga bixinayo culimada horta markii la joogo madaahibta fiqiga ka hadlay madhabka Shaafiiciga markii la joogo waxay leeyihiin lacag ma lagu bixin karaa aslan ilaa in xaalad daruuro ay timaado maan culays u yimaado culayska imaan kara marka waxa kamid ah inuu qofkii waayay raashinkii loogu talagalo aan qeexi doono wax lagu bixinayo dhanba waay lacag waxanaynba waa la waayay in dawladda amar ku bixisaa kamid ah oo dawladda waa mu'assasad gooniya waxay u sameysay waxay yiri hay'ad heblo ama wasaaradda diinta iyo awqaafta sida Djibouti oo kale way leeyihiin dad qaada ama dawladaha horumar jiha muayyan hadii jiro dawladdu u sameysay jihadaas loo dhiibayaa way leeyihiin markaas way banaan tahay wixii jihadaas iyadoo ay dalbato inay ku qaado bay ku qaadayso laakiin madhabka Shaafiiciga sida daahirkiisa waxa waay in lacag la ogolay maxaa lagu bixinayaa marka hadii lacag la diiday waxa lagu bixinayaa raashinka loo yaqaan mucasharka ama waxyaabaha markii zakada laga bixinayo 10 meelood inta loo kala qaado meel kamid looga zakiyo sida galeydii masagadi sarreenkii bariiska laftiisa waa soo galay shuruud buu leeyahay shaygaas waxa leeyahay shuruudiisa waxa kamid ah waa in uusan shaygaas uu saliim yahay ama shay nabad qabo waa inuu yahay waa in la shiidin tusaale kale hadii shayga la daqiiqo ama baasta makarooniga waxyaabo la midka culimada qayb kamid waxay leeyihiin ku bixi maysan si loo baday marka waa inuu xabba saliima u yahay oo saliima waxa ku sii qeexan culimada qaarkood ku Soomaaliyeed culimada waa baalshiyo bixi ka dheeraan oo la talaali karo marka shayga la noqonay intaas uu noqonaya jinsigiisa uu ka kooban ama qadarkiisa shayga waxina qadarkiisa xilliga hore hada wixii la isticmaali jiray culimada ku soo guuriyeen nabiga sallallahu alayhi wasallam saacan min tamrin iyo waxyaabo laga soo guuriyay nabiga sallallahu alayhi wasallam waa saac in lagu bixiyo saac marka wax yiraahdo muxuu u dhigmaa saac wuxuu u dhigmaa yiraahdo markii la soo dhaweeyo taqriib loo sameeyo afar mud buu ka koobay mudkii baan marka anaga soo dhaweyn karnaa hadaan Soomaalinahay dabcan saaci meel aan ka isticmaalno aniga ma aan arag intaan soo joogay oo saac wax lagu cabiro laakiinse mudka un baa laga isticmaalaa mudkana magacaas looma isticmaalay waxa loo isticmaalaa wax la madaal asoo la yiraahdo meelaha lagu gado raashinka iyo madaalkaas la isticmaalaa waxa kale lagu soo dhaweeyaa daasadaha lagu keeno saliid la naarajiinka ama CBC da loo yaqaan saliid qumbaha mid kamid ah oo koombada caadiga ah ee Soomaalidu taqaaneen xoogaa bay ka weyntahay kiilana waa ka yarta markaan saas leenahayna waxay yiraahdaan culimadu shayga markii la qadarayo laba shay baa mid kamid lagu qadaraa wazan in la yiraahdo ama miisaan in lagu qadaro ama makiil wax la yaabay in lagu qadaro zakatul fitr waxa kamid tahay waxyaabaha nabiga sallallahu alayhi wasallam markii laga soo guurinay saxaabada beeg un baa looga soo gaariyaa hadii la miisaan hal saaro shayga wax lagu bixinayaa kala bedelan oo waxa laga yaabaa in galay markii lagu beegayo bariis in kala miisaan cuslaadaan marka waxa yiraahdaa miisaanku ma haboona dhinaca in la aadee beegida caadiga ah in la aado un baa haboon marka ma laga yaabaa galayda iyo bariiska in isku beeg noqdaan isku beeg waa isku beeg noqon kara laakiin miisaanka in kala duwanaadaan baa laga yaabaa maxaa yeelay galaydu waa waaweyn taas dareemaysa bariiskuna aad buu yar marka waxa laga yaabaa beegi waa isla beegi laakiin si culays markii la yiraahdo ama markii la aado miisaan inuu shayga yar u bataa laga yaabo maadaama bariisku uu galayda uu ka yaryahay marka waxa asalkaahi waa in la beegay in la cabiro ma aha oo cabir la waxa laga yaabaa in xitaa bariiska laftigiisa marka baaritaan ay ku sameeysid asaga laftigiisa bariisku kala waxay yiraahdeen kala miisaan badan asoo beeg isla beeg ah halka madaal waxa laga yaabaa ama saaca oo afar ka kooban mud markii meel lagu shubo oo dhowr bariiso kala duwan la isku keeno mida dhumuc waaweyn midna waa yaryar marka asaga xataa kala culays badan bay leeyihiin asagoo jurmiga iska leeg buu kala culays badan marka asalku waxa waa in la beego waxa kala fiican bay leeyihiin marka shaygaas shuruudiisa waxa kamid ah wax lagu bixinayo غالب قوت البلد وينه أما السيدة مجال هذا قف كاس وكونه ليه هاي أو قف كالجزء كيني وكونه ليه هاي
mararka qaarkood waxaa laga yaabaa qofka zakaynaya iyo qofka laga zakaynaya inay isku mid noqdaan inay kala duwanaadaan qofku markuu asaga iska bixinayo haddee kii zakaynayana waa asaga kii laga zakaynayana waa asaga xaaskiisii ilmihiisa yararka marka loo fiiriyo dadka uu ka bixinayana waa kala laba soo maaha markasta waxay marka qofka laga zakaynaya unbaa la fiirinaya meesha uu ku nool yahay cuntada u qaalibka ah oo tusaale kale sanadka haddii la kala qaybiyo 7 bilood ama ka badan shayga la cunay kaasaa laga bixinaya waana inuu yahay shay ajwadaho shayga ugu fiican inuu yahay in laga bixiyo sidaas habboon bay leeyihiin marka waxa la bixinaya marka waa intaas waa tahay qof maqan oo dalka dibadiisa jiro kale intuu lacagta soo dhiibo oo dalkan dib ugu soo celiyo lacagtaas zakadaas ma ka gudmaysaa maxamed waa mahadsan tahay naqlu zakada ayaa loo yaqaanaa ama zakada in meel kale loo raro madhabka shaaficiga sida daahirka ku ah ama sida ka muuqata madhabka shaaficigu ma banaano leeyahay naqlu zakad ilaa in daruuro timaado ama culays u yimaado ma daruurada timid waxa kamid ah leeyihiin qofkaani meesha uu ku noolaa dad fuqara ah ka waayo oo siiyo dadkii marka sifaadkii lahaa ama tilmaamihii wax la siinaya haduu ka waayo magaalada uu joogo ama gobolka uu joogo kan ku xiga oo fuqaro ugu xiga uu la aadaya asaasi shaaficiyadu qabo culimada qaybo kamidna waxay leeyihiin zakadan qofku meesha rabo geyn kara qof kasto muslina oo shuruudii laga helay zaka inay ku baxdo qofkaas la siin kara khilaafkana waxa dhalinaya xadiiska ka hadlaya zakada baa wuxuu tilmaamayaa tu'khadu min aghniyaihim waxa laga qaadayaa dadka kuwooda hantida haysta oo tanaadka fatuladu ala fuqaraa'ihim waxaana lagu celinayaa dadka taagdar marka baranoonkaas ama damiirkaas oo aghniyaihim iyo fuqaraa'ihim baa wax loo celiyay ma aghniyaa'ul muslimiin iyo fuqaraa'ul muslimiin baa laga wadaa oo markaas naqli waa banaay meesha la raba la geyn kara mase waxa laga wadaa aghniyada waxa laga wadaa magaaladan kuwooda hodanka iyo magaaladan kuwooda fuqarada shaaficiyadu markaas ku fasireen badankood marka laakiin sida ka muuqato culimada hadda Imam Bukhari oo kitaabkiisa la yiraahdo Sahih Muslimka markuu baabaysanay Ibn Hajar baab wuxuu u baabaysta macnaha zakada in lagu celinayo muslimiinta in laga qaaday aghniyada muslimiinta laguna celinayo fuqarada muslimiinta shaaficiyadu markaas waxay ka soo reebayaan oo kale hadii mararka qaar kood xaaladii daruurada oo dawladdu ay ururinayso ama islaamkii oo dhan baa wuxuu sameeyay hal qof oo imaam ah hogaamiye halkaas qof hadoo ururinayo naqligu markaas uu u banaan yahay leeyin oo khilaaf kama jireelay maxaa yeelay asaga masaalixda dadka muslimiinta asaga ku aqoon badan oo wuxuu awoodaa intuu muqdisho ka qaado malaayiin lacag oo zakatul fitri ah inuu meel kale oo muslimiinta joogan oo baahi badan inuu og yahay halkaas u geeyo marka naqliga zakada marka waxa leeyahay saas un baa la sameyn karaa culimada qaybo kamid waxa la weydiiyay madaahibta lacagta qabtay madaahibtaas ma loo saarsan karaa inta madhabkan looga baxo oo madhabkan ma loo saarsan karaa marka waxa yiraahdaa ma loo saarsan karaa talaan shaaficiya inaad madhabka Abi Xaniifa oo kale uu yiri inuu dhinaca kale inuu la aadi karo marka si looga baxo marka dadkuna shakiga uga baxaan inkastoo axwadku uu yahay sida madhabku xog badan in lacag lagu bixin dawladdu waxay fiicnaan lahayd inay u samayso muassaso ama cid gaar ah oo zakada aruurisa si masaalixda dawladda markaas ay ugu iisho dadkuna waxay ka badbaadayaan khilaafkii ahaa zakada meel kale ma la geyn kara iyo naqliga madhabka shaaficiga dawladduna waxay maamulkeeda maadaama dadka ay wakiil ka tahay masaakiintii inay aruuriso marka sidaas u fiicnaan leed aghniyadana saas u fiican ama dadka hodanka ah dadka fuqaraana sidaas u fiican maxamed aad baad u mahadsan tahay intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa qaybtii 14 aynu kaga hadlaynay sababaha iyo weli qaabka loo bixin karo zakatul fidriga tan iyo kulantideena dambe barnaamijka xiga waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo